وحبين وين وآدي فرحة إنه قلت هاي أنا إذا كسر دوينا مجهد إمبالي وحن آدي ربا أنا هل كان هو هذا الغضب ومهم ودمانتين أرضها هل كان كسوان أي عاوة أي أنا مستنى هاي ولا غوان قضب كاسو إن أنا معناها سان أجن هاي نحس بجان وحلا غفري ودن كيوان نسيجود لكن أنا قاسهان مجال إمبالي أرضية إيجادك كسوان جالية الصوماليات وحي أيقون السوداء كلوب هي هن حبنتو ده إن يهلان حرون إن لو غفروا مجال إمبالي sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay dadka marti sharafta ka soo qayb gashay caawa aad iyo aad noo soo dhaweeyday xubnaha ka socda xisbiga UPD mudan in la soo gaaro inuu soo gaaray oo ah ardada Soomaaliyeed oo ah aqoon-yahanada dadkii mustaqbalka inuu soo gaaray caawa uu la joogo kuwa badan u sii dhiman yihiin laakiin caawa ra'ay ayu UPD is hayaan iyo team badan xisbiga jaamacada kale ka socda marka waxaan leeyahay waa ku faraxsanahay soo dhaweyntiina waan in kaga mahad celineynaa ka baahin ahaan waxaa jira qorshe baahineed oo noo diyaarsan oo aan rabno insha Allah inaan sameeyno oo ugu horeysay inaan soo booqano magaalooyinka kale oo aan ahayn Kampala magaalooyin kale oo ardada Soomaaliyeed ku nooshaan soo booqano dhiirigelin iyo talooyin badan aan madaxda naga sareysa ka helay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed ugu horeeyo aan meeshan ku nimid oo meesha ardada ugu badan ay joogto oo fircoon dad badan ay joogan dhiirigelintaas oogeedaan meeshan u nimid sida wad ogtihiin anaga waxaan nahay dhalinyaro haddaan nahayna waxa jiro fursado anaga aan abuuran karno waxaana noo saamixi karo haddii ay tahay qaybta siyaasadda maadaama aan nahay majaalkan ku jirno majaal siyaasiya garoomada siyaasadana ay yihiin meelaha lagu tababarto markii aan nahay dad dhalinyaro oo u hamuun qaba maxaa la dhahaa inay gaaraan talada dalka iyagoo aan ku gaareen in hebel iyo reer hebel iyo caashi wax iyagoo aan ku gaareen anagoo midaysan waxaana ku noqon karnaa xisbi marka aad tahay xisbi waxaa ku jiro dhammaan Soomaaliya intay ka kooban tahay laakiin markii talada ay qof iska soo dhacayo uu imaado waa taqaana wuxuu keenaa walaalkiis ama walaashiis xisbiga UPD waa xisbiga kaliya ee maanta dhalinyarada Soomaaliyeed fursad siiyay sidaan isleeyahay aniga aynu ku jiraan in ka badan 10,000 oo dhalinyaro oo kala jooga dhammaan geeyiga Soomaaliyeed ujeedka aan halkaan u imaanay safarkeena oo ku saabsanaa waxay tahay bal u kuurgelida iyo isbarasho iyo bal inaan maaragtay xaaladahooda nololeed si dhibliya aan maaragtay isaga wareysano dhalinyarada heer Imbaali iyo jaaliyadooda ujeedka u imaanay iyo xisbiga UPD afkaartiisa inaan geeyno Imbaali gobolka Imbaali ujeedka aan halkaas u imaana taas ahayd waxaan isbareynaa tan ay tusaale u tahay xisbiga UPD aniga kullee waxa laga yaabaa dadka qaarkiina cunuga yeelaanta badan xooyo gudoomiyaha xisbiga ina dhaadin laakiin taas tusaale waxay u tahay dhiirigelin u tahay inkay tusaale dhiirigelin u tahay xisbiga UPD inuu gartay awoodda dhalinyarada Soomaaliyeed inay gartay dhalinyaradu inay yihiin kuwa maantay dalkan badbaadi kara mudanna in loo dhiibo oo xisbiga UPD gat sida xogaayaha in sheegay xisbiga waxa markaad eegtid percentage-ka ama aqeemeedu dhamaantood 80% dhalinyaro xisbiga waxa ka tirsan madaxna waxa ka ahna dhalinyaro u badan yihiin sidoo kale xisbiga UPD waxa ka helay dad khibrado kala duwan u leh bulshada dhexdeeda haday ahaale siyaasadii haday ahaale arrimihii bulshadii dhamaantood dad marka khibrada ay leeyihiin ka soo bilaabata ilaa kan ugu yaraana fila markii madaxdeena iyo xildhibaanada qaran iyo maaragtay iyo madaxda sasaro dalka soo martay madaxweyne Xasan Maxamed ugu horeey khibrada ay leeyihiin ugu yaraan 20 sano iyo maaragtay 10 sano meelahaas
وحزب UPD وحكيله أقاسم واحد قف كصوب بالله وحكيله حق هاي قف كصوب بالله حزب UPD كير إلا كجاري معرفة درجة سريع كله قربنا حزبك حزبية بدأ نوض كجرا waxaan malayna xisbiyadii waxay iska noqdeen sidii sanduuqadii oo kale waa la iska soo taafurfurum marka xisbiga UPD waxa uu astaanta gaarka kaga duwan yahay marka laga reebo inuu dhalinyaro u badan yahay xasan sheekh maxamuud xasan waa la soo tijaabiyay waana soo aragnay marka waxaan rabnaa inuu weydiiyo madaxweynaha waa soo tijaabinay mar labaad buu xisbigiisu tartamaya magac waxa cusbanaado laakiin somehow siyaasiyiintu waa iyagi marka maxaa isbedelay maxaa markan u muuqday maadaama uu banaanka joogo oo arkay dadka loo shaqeynaya isla markaana uu yahay qof mucaarada markaana uu muxaafid ahaa xisbigu ma xisbigii 2012 ilaa 2017 wadanka ka talinayaba ma isbedel baa dhacay tagyiir miyaa la sameeyay haddaad noo faahfaahin kartaan aad baa u mahadsantihiin astaanta gaarka uga duwan yahay xisbiga UPD xisbiyada kale walaalkay coaching soo weydiiyay UPD wala baxday dhib leh su'aashaas horaan waa u sheegnay walaalkayo adna waa soo baari kartaa haddaad aragto xisbi UPD xisbi ka xildhibaano badan golaha shacabka markii la eego haddaad soo hesho kan xataa boqolkiiba 70 xataa u soo dhawaa kara xisbi u soo dhawaa kara haddaad soo hesho waxa waaye waa soo baari kartaa xogtaas waa soo raadi kartaa laakiin waa dareemi kartaa waxa la sadar muuqda su'aal ka dhan xisbiga UPD inay isugu imaadaan dad xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Soomaaliya ugu horeeyay madaxweyne Xasan Maxamuud oo wasiirro ku jiraan oo dadka xataa maaragtay xisbiga ka tirsan dhamaantood ay yihiin si u badan yihiin dad aqoon yahano ah oo cidna gooniya ama deegaan gooniya lagu tirinaynin dhamaantood ay dad maaragtay collection ah yihiin waxa lagu doortay taasa su'aal in isku mudan maxaa lagu doortay waxaa lagu doortay xisbiyada kan looga soo tagay intaanoo dadan isugu imaadeen waxa waaye waa astaan oo uga duwan yahay afkaar gaar uga duwan yahay xisbiyada kale iyo ay ku qanceen barnaamijyadiisa siyaasadeed xisbiga UPD markay ku qanceen intaanoo siyaasiyiin isugu imaadeen wuxuu walaalkay dhahay xisbiga waxa hogaamiyo madaxweyne Xasan Maxamuud la soo tijaabiyay وارون ولا سوي تجابي لكن محو اسبدل تجابينتي لسو تجابي ما تهي مid maaragtay umada Soomaaliya horseetay dawladnimo wanaag hormar ma tahay markii waana soo baarikatay intiina hadii nin maaragtay 2011 waa ogaa kartiin wax walba waa soo baarikatay waxa leeyahay xaq macnaha aniga waxaan rabaa afkay kaliya in waxba laga dhigaysan reference wax walba ma ogtahay inaan wax iska sheego aniga taga ma rabo laakiin wax walba reference inay leeyihiin waxaad ogaatiin madaxweyne Xasan Maxamuud markuu dalkan talada qabanayay meel sagxada u imaaday meel sagxada laakiin way jiraan dawladihii ka dambeeyay Cabdiqaadir ka soo bilaw Cabdullaahi Yuusuf maaragtay Sheekh Shariif meel soo gaarsiiyeen laakiin nidaam dawladnimo hay'ado la dhiso waxa ugu horeeyay Xasan Maxamuud hal hay'ado dhisnay markuu imaanay ma jirin hal hay'ado dhisnay markuu imaanay ma jirin xagga dhaqaalaha meeshuu maray miisaaniyada dalka oo leeyahay oo sax ma jirinba markii ugu horeeyay oo miisaaniyada dejiyo markuu saan talada u maadalada 3 bilood soo joogo miisaaniyada dalka dejiyo oo baarlamaanka la horgeeyay 3 bilood soo joogo oo miisaaniyada wuxuu ku bilaabay miisaaniyada 110 milyan $3,000 oo ku bilaabay marka waa dareemi kartaa markuu ka tagayna wuxuu uga tagay 262 milyan uga tagay barka laga soo qaad GB-ga dalka wuxuu marayay markuu hadda GB ma jirin dalka markuu qabanayo zero aha waana baa economic dad barta iyo accounting dad barta dhaqaalaha dad barta jira GB-ga dalka
wuxuu uga tagay xashi maxamuud 3 4.2 mise 3.1 meelahaas uga tagay marka waxaad haddana laba wuxuu marayaa 3 dhibic hoos uga sii dhaca hada